بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين وسقالكي بشي لباد لبدا كون iyo 26 waa habeen salaasa ay soo gelayso ilaahay khayrkayna waafajiyo caawa waxaynu fadhinaa barnaamij runtii aad u qiimo badan oo waqtigiisa kusoo beegmay oo aynu kaga hadlayno fahanka AI-ga waxaynu sidoo kale diiradda saari doonaa maxaa jira maxaase iman doona waxaa inoo martiyaa haddii ilaahay idhaahdo maxamed cali cilmi oo intii u dambeysay dadka u fara dhuudhuubnaa AI-ga ama artificial intelligence oo inputna ku yeeshay soomaaliga in AI-ga la fahansiiyo af soomaaliga oo dadkii koobnaa ka shaqeynaya ka mid ahaa marka maxamed baynu caaw soo dhaweyneynaa haddii ilaahay idhaahdo wixii su-aala ah gadaal baynu riga doonaa aan soo dhaweeye maxamed soo dhow maxamed aad baad mahadsantay khadar waad ku mahadsan tahay soo agaasinka aad soo agaasintay marka kolley waynu iska bilaaban doonaa markaa waynu yaro taataaban doonaa waxaynu ka yar hadli doonaa kolley iminka muddo ilaa 5 sano 4 sano ilaa 3 sano ama 4 sano waxa aad looga hadli jiray waxaan la yiraahdaa AI-ga intii hore dadku aad uma maqli jirin baa laga yaabaa laakiin sanadihii u dambeeyay marka bal waxay ila tahay iminka in la yara bayaamiyo bal intii la fahansanaa wax kale lagu sii daro haday suurtagal tahay marka point kaygu aniga waxa weeyaan waxaan istaagi doonaa a high level overview on AI marka u geli maayo the nitty gritty stuff ama waxyaabaha aad ka magaasa u faahfaahsan laakiin waxaan yara istaagi doonaa high level overview dulka xaadis u badan meelaha qaarna tusaalayaal inaan ka bixiyo waan isku dayi doonaa marka maaha more technical maaha laakiin waa in dadka caadiga ah ee xataa aan magaranaysaa teknolojiyadii waxyaabaha aan wax badan ka fahansanin ay magaranaysaa fahmi karaan ayaan isku dayi doonaa marka u geli maayo tooliska la isticmaalay iyo sida loo isticmaalay iyo productivity sida loogu sameeyay iyo waxyaabaha aad baa ugu arkay iyada Soomaalida oo YouTube-ka ay aad uga hadlayaan marka aanu meelaha geli maayo laakiin bal overview good baan isku dayi doonaa saameyntiisa iyo halku maraya iyo halka la tegi kara ee suurtagalka ah mustaqbalka dabeetana haddii ay suurto gasho su-aalahan waynu ugu dambaysiin doonaa intaa marka laga yimaado intaanan bilaabin waxa kale oo aan iyadana ka cudur daaranayaa kow anigu ma yihi khabiir AI ah marka dee ma sheegan karo inaan anigu khabiir ahay oo wax kasta aan ka jawaabayo oo wax kasta magaranaysaa aan fahansanahay laakiin waxaan idinla wadaagayaa un sanadihii u dambeeyay waxyaabo magaranaysaa ama xiise gelinayay ama aan research personal ku samayn jiray baan idinla share gareynayaa marka taasina waa taas marka lama oran karo dee khabiir AI-ga oo ka hadlaya waayo baraha bulshada iyo meelaha waa dee qof waliba khibrad iyo expert buu ayuu sheegtaa laakiin
taasi maaha pointkan halkan aan uga hadlayno. taasi waa mid. ta koowaad ta labaadna waxay tahay iyaduna iga cudurdaarka ahi waxyaabo badan aynu sheegi doono ama aynu ka warrami doono waa like waa waxyaabo la isleeyahay malaha waa suuragal marka laga yaaba inaanay suuro gelinba ama sida loo sheegayo inaanay u wada dhicin ama marka inagu waxaan aynu aan caawa sheegaya ama aan pointyadan ka hadli doonaa waxyaabo badani waxa weeyaan waa waxa expertisku ay AI-ga ka leeyihiin marka labadaa qodob baa iga cudurdaara marka wixii hadday wax ka soo noqdaan ama wax ka khaldamaan yaan taana la ii qabanin taasina iyaduna waa cudurdaarka leh labada qodob marka laga yimaado doodeenna haddaynu ama hadalkeenna haddaynu iska bilowno waxaa laga yaabaa markaynu boardkastan aad furto ama aad dhegeysanayso inaad isweydiiso maxaa AI-gu muxuu yahay iyo taariikhdiisii iyo waxaas ma doonaya xataa inaan waxyaabaha ku raago iyo definitionkiisa marka horta inta aanan bal definitionkiisa gelin historically AI-ga markii ugu horreysay waxa maqalka adduunka waxa ugu horreeyey 1956 ayaan filaya markaasaa kelmadda artificial intelligence la maqlay marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso okay hold on it's not new technology ba maaha hadday sidaa tahay de waa technologiyad malaha 70 sano 60 sano iyo wixii la mida jirtay marka waa run dhinaca marka laga eego yes waa technologiyad beri hore dee la yaqaanay oo la sii saadaalin jiray laakiin waxaa isweydiin le maxaa maanta haddaba hadalkan badan maxaa keenay maxaa wax kasta oo laga hadlayo AI loo dhexgelinayaa xayisiis kasta maxaa AI loogu darayaa maxaa imika soo kordhay marka haddii technologiyadda magacan artificial intelligence 1956kii la maqlay maxaa keeni kara in imika uu hadalku aad u bato okay ama AI-gu heerka uu maanta joogo inuu soo gaadho ay qaadato muddada intaa badan la eg ay qaadato marka AI-gu guud ahaan technologiyadani waxay u baahan tahay beriga tusaale ahaan suuragal may ahayn in sida ay maanta tahay ay ahaato because of waxyaabo fara badan oo jira oo ay ka mid tahay technologiyadani waxay ku base garaysan tahay in la ururiyo xog aad fara badan marka computeradii berigaa jiray iyo capacitygoodii iyo storage systemskii iyo waxaasi may saamaxayn marka waxaynu odhan karnaa horumarka laga sameeyey xagga computing powerka processingka chipska waxaan process gareeya storageka waxyaabahaasi ayaa wax weyn ka taray oo dhibaatadii ama mushkiladii ahayd in xog badan la ururiyo meesha ka saaray waxaa kaloo kamid a de cloudka oo imika cloudka iyo internetka soo bixitaankiisa iyo waxyaabahaas oo dhami iyaguna waxay awoodeen in a huge amount of information in si sahlan loo kaydin karo oo aan laga warwarin halka lagu kaydinayo iyo sida loo haynayo waxaas marka haddii ay tahay su-aashu technologiyadani 1956kii baa markii ugu horreysay kelmadan la maqlay why it takes so long inay heerka maanta ay taagan tahay soo gaadho because waxa weeyaan su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa waxa weeyaan technologiyadii berigaa jirtay ama sanadihii ku xiga jirtay ama waxaasoo dhan soo socotay may awoodeyn in ma garanaysaa waxyaabaha maanta la samayn karo in berigaa la samayn karayay marka xilliyo badan baa la sheegaa waqtiyuu soo maray xilliyo abaaruu soo maray oo aan research la samayneyn xilliyo researchka la samayn jiray xilliyo ma garanaysaa marka heerkan buu soo gaadhay marka
waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo waayi haddaba muxuu yahay artificial intelligence but let's go back to basics marka si fudud haddaynu u dhigno bini aadamku wuxuu isku dayey in uu sameeyo maskax kale oo aan ahayn tii bini aadamka macnihii principalkay ku base garaysan tahay technologiyadina waa sidaas waa inuu bini aadamku isku dayayo inuu sameeyo maskax kale oo aan ahayn maskaxdii ilaahay sameeyey marka waxaa la yidhaahdaa non biological intelligence waa maskax aan ahayn tii biologicalka ah ee qofka bini aadamka ilaahay u sameeyey in la sameeyo ayaa laga fikiraya marka su-aalo badan baa halkan ka dhalanaya ma la samayn karaa intaan taa la gaadhin waxaa la isweydiin karaa oo kale intaanu bini aadamku odhan maskax kale ha la sameeyo waxa kaloo la isweydiin karaa horta dee wixii marka la garanayaa la sameeyaa maskaxdan la doonayo in la sameeyaa la doonayo in ay tii bini aadamka kala noqoto dee ta bini aadamka ma la garanaya horta siday u shaqaysa ama siday tahay ama intee in leeg baa laga yaqaana marka su-aalaha waaweyn baa meesha yaalla uma malaynayo in bini aadamku uu fahansan yahay wax badan oo ka mida maskaxda bini aadamka taasi markaa waxay tahay haddii bini aadamkuba aanu si dhammaystiran u fahansanayn maskaxdiisa ilaahay u sameeyey sidee loo samayn karaa maskax kale oo bini aadam sameeyey oo ta ma garanaysaa ta bini aadamka la tartanta marka runtii dee su-aalahaas cid ka jawaabi kartaa ma jirto anugu kama jawaabi karo horta laakiin dee principalku uu ku base garaysan yahay artificial intelligence ku halkaas marka haddii aan maskaxdii bini aadamkaba la fahansanayn sidee loo samayn karaa maskax kale oo la tartanta ta bini aadamka because tii bini aadamka aad looma fahansana marka sidee marka la leeyahay artificial waa intelligence what is intelligence by marka intelligence muxuu yahay yaa define gareyn kara intelligence marka ilaahay unba dee maskaxda bini aadamka fahansan 100% laakiin cid kale oo saa u fahansan ma jirto marka intaa marka laga yimaado markii November 2022 ayga waxa ka hadli jiray oo kaliyaata dad tiro yar oo khubaro ah oo laga yaabo inay researchers yihiin ama ma garanaysaa dee companiyo waxaa sameeya ayga sameeya ay ka shaqeeyaan ama ay leeyihiin ama dad noocaas unbaa laga yaabaa inay waa November 2022 macnaheedu waxa weeye 4 sano wax ka yar ka hor 4 sano ka hor meelahaas dadka ka hadli jiray garanayay ay waxay ahaayeen waa dadka expertska un bay ahaayeen ama Silicon Valley jooga ama ma garanaysaa iyagu waxaan ka shaqeeya ama kuwa la midka ama researcherska ama kuwaas laakiin after November 2022 waxaad moodaa qof waliba wuxuu ka hadlayaa AI dadka intooda badan not qof waliba laakiin dadka intooda badan meel kasta way ku jirtaa xaysiis kasta page kasta way ku jirtaa meel kasta waa lagu xaysiinayaa this is AI markan AI buu ka caawinayaa waxyaabahaas oo dhan marka maxaa isbedelay marka waxaad isweydiin kartaa November 2022 maxaa isbedelay maxaa soo kordhay waaniga hore inuu sheegnay waxaan researchadu way socdeen ilaa beri hore laakiin dee developmentka laga sameynayay ama horumarka laga sameynayay xagga tiknoolajiyadda caawinaysa inuu AI-gu horumaro ayaa marba marka ka dambeysa soo kordhaysay then waxa la soo gaadhay November 2022 waxa la soo gaadhay in la soo daayo oo suuqa lagu soo daayo waxa la yiraahdo large language models ama LLM models LLM models waxa weeyaan waxyaabahan ChatGPT-ga
ma garanaysaa Gemini-ga macni waxyaabaha chatbotiska macni chatbotiska lala sheekaysto ma garanaysaa intaad la sheekaysatod wax weydiiso dabeetana ku siinaya human like response jawaab tii bini aadamkoo kala ah ku siinaya macni kuwaasaa soo baxay marka in badan waa laga digi jiray inaan ma garanaysaa waxaan suuqa lagu soo dayn in ma garanaysaa loo kaadiyo horta inta sharciya loo samaynayo laakiin waxa dhacday uun November 2022 out of a sudden company-gan la yidhaahdo OpenAI unbaa si lama filaana unbuu ugu dhawaaqay waxaan la yidhaahdo ChatGPT-ga inuu soo saaray ChatGPT-gaasoo ma garanaysaa lala sheekaysan karo ood wax weydiin karto oo ma garanaysaa answeriska uu ku siinaya ay yihiin sidii qaar qof aad la sheekaysanayso oo kala ah marka hore umay jirin dee marka horena wax baadhayna berigii hore 5 sano 6 sano ama wixii kasii horreeyay waxaynu samayn jirnay google-kaad ku qoraysay waxaad u baahan tahay ama meelaha kale aad ku qoraysay dabadeetana wuxuu linkiyo ku siinayay halkaa ka akhriso linkiyadaasaad sii baadhbaadhaysay waxbaad kala soo dhex baxaysay markaa laakiin iminka totally wuu isbedelay ma garanaysaa sidii wax loo baadhi jiray oo dhammi way isbedeshay mar keliya unbay isbedeshay subax xun baa lagu soo toosay ma garanaysaa chatbotis yaacaya ama meelo lala sheekaysan karo oo markaad weydiiso ku siin kara wixii aad u baahnayd exactly yani waxay dhahdaan human like response sidii qof marka su'aal weydiiso kale khadarow ii sheeg waxaasi waa maxay processorku waa maxay markaad tidhaahdo ayuu ku odhanaya processorku waa sidaas kuma siinayo linkigan gal ama halkan ka eego ama YouTube-kan videogan daawo waxaa kuma siinayo marka taas waa taas marka ay soo baxeen LLM modelskaasi November 2022 ayay sheekadii gameka way isbedeshay markaa sheekadii waxay noqotay in ma garanaysaa qof waliba uu isiraahdo ka faa'iideyso dee dadkuna waxay u subscribe gareeyeen si aan xad lahayn oo tusaale ahaan waxaan filayaa haddaanan khaldanayn 2 bilood gudahood 100 million subscribers buu helay ChatGPT berigaas waxa weeyaan waa unprecedented technology kale oo 1 million subscribers ay 2 bilood gudahood ku gaadheen lama arag haddaad u fiirsato xataa application Facebook ma garanaysaa Instagram WhatsApp X ama Twitter waxaasna haddaad fiirsato it takes years inay 1 milyan gaadhaan laakiin chatbotiskaasi muddo yaro kooban oo I think 2 months inay tahay ayay malaha ku heleen 100 million subscribers okay taasi waa taas marka waxaa noise-ka kiciyey iyo noise-ku halkay kasoo bilaabmatay baynu sheegnay ta kale ee muhiimkahay waxa weeyaan iyaduna inaynu nidhaahno haddaba what's AI weli kamaynu jawaabin AI-go maxaa tahay horta way adag tahay in la define gareeyo in la yidhahdo AI-gu waxa ayar la iska yidhaahdo way yara adag tahay oo ma sahlana laakiin waxaan isku dayi doonaa bal socodkaa aynu wadno ama sharaxaad aynu wadno ugu dambayn markaynu dhammayno inaad fahmi karto waxa uu yahay AI-gu marka kolba dhinac baynu ka istaagi AI-gu waxan buu yahay AI-gu waxan maaha markaynu dhinacyo badan ka istaagtaagno ayaa laga yaabaa inuu macno inoo sameeyo marka aniguna waxaan isku dayi doonaa inaan sidaa u socdo okay marka AI-ga dad badan ba waxay aaminsan yihiin marka la define gareynayo inuu yahay tool waa maxay inuu yahay qalab oo kale inuu yahay tool tusaale ahaan gaadhigu waa tool diyaaraddu waa tool midida aad cuntada ku cuntaa ku gogoosataa waa tool screw driverka aad ma garanaysaa boolashii waxaa ku furfurtaa taayirka ku bedeshaa waa tool waxyaabahaas oo dhan marka waxay leeyihiin AI-gu waa tool la mida tusaale ahaan tooliska kale ee faraha badan ee la isticmaalo technology-ga ahaan la keeno oo kale ay technology-du keentay oo kale laakiin waxaan
anigu ku qancay inaanu AI-gu ahayn tool keliyata laakiin tool uu ka badan yahay uu macnihii tool iyo wax ka badan yahay because waxa weeyaan AI-gu waa like agent yani agentku waa wax aad wax u dirsanayso oo wax ku qabanay ku adeegayo kala tusaale marka mididu tusaale ahaan kuma adeegaysa hadday halkaa taalo halkaas iska olaysaa ma midida intaad wax u sheegto ma dhaqaaqi karto dabeetana cunto kuma jari karto marka mididu maaha agent maaha laakiin AI-gu waa like agent okay sababtuna waa maxay AI-gu can make its own decisions AI-gu wuxuu samayn karaa decisions uu isagu iska leeyahay buu samayn karaa tusaale ahaan imika technologiyada la dhahdo nuclearku isagu ma go-aansan karo meesha lagu ridayo in dalka lagu rido in Japan lagu rido in meel kale lagu rido isagu ma go-aamin karo laakiin AI-gu wuxuu go-aamin karaa wax uu isagu sameeyey ama isagu go-aan buu samayn karaa go-aanu isagu qaatay oo aan ahayn go-aankaagi ayaa laga yaabaa inuu samayn karo waa possible macnihii the underlying technologiyada taa awooddaas siin lahayd way jirtaa iminka tusaale ahaanoo kale waxaad ka soo qaadaa algorithmska tusaale ahaan iminka markaad shaqo xarayso website ka xarayso waxaa laga yaabaa in taas sababtan u sharaxaya waa sidaas waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee buu AI-gu go-aan u samayn karaa marka su-aashaasan daba socdaa marka imika waxaad kasoo qaadaa tusaalaan ku siinayaa waxaad kasoo qaadaa iminka markaad tusaale ahaan shaqo ka xarayso website waxaa laga yaabaa shaqada inay xareeyeen 100 qof ama 50 qof waxaa doontaba dheh waxaa laga yaabaa in AI systemka ama algorithmka ku xidhan meesha aad ka apply garayso shaqada inuu soo saaro keliya soo shortlist gareeyo 5 ka mid ah ama 10 ka mid ah marka waxaa laga yaabaa inaanay bini aadanba aanay faraha la gelin waxaas laakiin the AI system ayaa sameeyey decisionkaas isagoo eegaya some requirements waxyaabaha qaar isagoo eegaya ayuu AI systemku go-aan sameeyey inuu khadar can be shortlist maxamedna cannot be shortlist wuxuu go-aan samayn karaa in khadarna liiska shortlistka interviewga laga qaaday lagu daro ma garanaysaa faaraxna ama hebel kalena aan lagu darin laga reebo marka in that case soo lama odhan karo it can make its own decisions marka waxyaabaha laga warwarsanya waxa ka mid a ka waran haddii uu AI systemku go-aan leeyahay uu wax go-aamin karo ka waran haddii uu markaasi militariga galo iyo ciidamada dabadeetana uu go-aamin karo cidda la weerarayo iyo cidda aan la weerarin marka waa waxyaabaha de ma garanaysaa dooda dhalin kara marka waxaynu nidhi kow AI-gu ma aha oo keliya tool sida ay dad badani u doodaan laakiin waa tool wax ka badan oo noqon kara agent muxuu ku noqonayaa agent because it can make its own decisions taas waa number 1 number 2 it can generate its own decisions it can generate its own ideas wuxuu generate garayn karaa idea uu isagu iska leeyahay oo aan ahayn ideaska dadka bini-aadamka aan ahayn sidee taas u dhici kartaa tusaale ahaan iminka tusaalaan ku siinaya waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo this is sci-fi movies
tani malaha waa khuraafaad laakiin tusaale u fiirso iminka marka aad google-ka berigii hore wax ka baadhayso google-ku wuxuu ku siinayaa links kuma siinayo wixii aad exactly weydiisay dee si rasmiya kuma siin laakiin linkiyada halkan akhri buu ku leeyahay laakiin haddaad iminka ChatGPT-ga furtood weydiisood ku tiraahdo sideen gaadhigayga oo cilada noocaasi haysato aan u hagaajin karaa ama ciladu maxay tahay ama waxaasaad weydiiso wuxuu ku siinayaa specific points uu ku leeyahay sidaas samee ciladu waa halkaas macnaha uma jeedo it can be 100% correct laakiin waxaan u jeedaa kumuu siinin linkiyo kumuu siinin laakiin wuxuu ku siiyey specific ama tailored information su-aashaada loogu talagalay buu ku siiyey marka informationka isagaa soo urursado soo akhriyey sourceska faraha badan uu haysto ayuu magaranaysaa soo akhriyey deetana isagaa isku keenay oo dabeetana ku siiyey waxaas ama isagaa learning ama isagaa bartay de ama source meel yaaluu soo arkay dabeetana uu soo akhriyey marka waa his own ideas way inuu ku yidhaahdo number 1 taa samee number 2 taa samee number 3 taa samee saa samee de isagaa ideada generate geliya laakiin kuma odhan linkiga akhri kuma odhan ta kale iyaduna taas waa tusaalaha kale waxa weeye inoo sheegaya in tusaale ahaan uu AI-gu generate garayn karo its own ideas waxa kale oo ka mid noqon kara tusaale ahaan printing presska tusaale ahaan markii la awooday in buugaagta la daabaco de technolojiyadaasi buugga adiga fikirka oo dhan keenayay adiga maganaysa soo qorayay deetana printing pressku technolojiyadaas way ku daabacayso buugga laakiin buug iyadu may generate garayn karayn ideooyin iyadu leedahay kumay darin buugga laakiin iminka AI haddaad tidhahdo buug iyo qor noocaasa isaga ideaskii ku generate garayn isaga ku qoraya wuu isugu kaa dubaridayaa khalaas marka taasina waa taas marka labada tusaale la eego waxaa la odhan karaa AI-gu waa technolojiyadii ugu horreysay ee adduunka soo martay ee dadka awood ay dadku leeyihiin ka qaada baynu sidaa u dhigno technolojiyadii hore ee adduunka soo mari jiray intooda badan ama badankooduba ama dhammaantoodba dadka waxay siin jireen awood bay siin jireen tusaale ahaan diyaaraddu waxay ku siisay inaad qaarad aad few hours ku tegi karto tusaale ahaan transportationka gawaarida magaranaysaa shipska waxaasoo dhami dee hawl badan bay fudeen awood markaa biniaadamka awood bay kusoo kordhiyeen awood bay siiyeen okay tusaale ahaan midida oo kale mididu waxay ku awoodisay inaad hilibka adag jarjari karto laakiin waxay leeyihiin magaranaysaa markaynu eegno labada tusaale horeynu soo bixinay AI-gu waa technolojiyadda koowaad ee adduunka ee dadka biniaadamka awood ay lahaayeen ka qaada tusaale ahaan awoodda fikirka tusaale ahaan iminka markaad wax baadhayso dee waxaa laga yaabaa inaad kama fikirinba waxaas wuxuu yahay inaadan waxaan isku geeyey waxaan magaranaysaa maxan muxuu yahay magaranaysa waxaa laga yaabaa inaad ChatGPT weydiiso tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad iminka isweydiiso rabadaan xillimay ku beegantay awal hore inaad maskaxda tuujisay ahayd oo tiraahdo sanadkii hore waxay ku beegnayd xilligaa dabeetana intaasay isbedeshaa sanad kasta dabeetana halka waa some form of mental exercise laakiin iminka anigu xataa sidan sameeyo ChatGPT uma qoran isagun baa sheega xaggaas iga bilaamaysa xaggaas maalin bay bilaamaysaa inuu 100% saxda noqdo maaha laakiin on average at least hadduu khaldamana maalin ama labo khaldamaya marka taasina waa taa marka waa sababtaynu leenahay it's an agent mar kale it's not a tool maaha toolo keliyata laakiin it's agent because AI can lie AI-gu been buu sheegi karaa
waxaa jira tusaale laga yaabo inuu kaasi fiican inoo fahansiiyo oo waxa la train-gareynayay system AI dabeetana waxa lagu train-gareynayay bal inuu barto sida loo akhriyo waxaan la yidhaahdo capture puzzle macnihii waxyaabahan ka soo horbaxa qofka marka la leeyahay waad aragtay computerka markaad isticmaalayso aad istiraahdo website gal ayuu ku odhanayaa are you a human wax noocaas ku odhanaya dabeetana wuxuu ku leeyahay waxaan isku beeg si aad u caddayso inaad human tahay marka system noocaas oo kale la train-gareynayay oo AI lagu train-gareynayay dabeetana AI-gii systemkii wuu keeni kari waayey wuu ku adkaaday inuu capture puzzle-kaa ka gudbo marka waxaa loo ogolaaday oo lagu xidhay system kale oo uu AI-gu hire garayn karo ama access u yeelan karo weydiin karo qof bila aadama inuu la hadli karo oo uu odhan karo iga caawi capture puzzle-kan iga caawi marka systemkii markuu koowaad uu fail garoobay mar labaadkii waxaa lagu xidhay system kale oo assistana oo bila aadam human assistana lagu xidhay kiibuu dabeetana la hadlay AI systemkii capture puzzle-kii markuu akhri kari waayey markaa qof bila aadama la hadlay wuxuu ku yidhi AI-gii capture puzzle-kan iga caawi dabeetana qofkii bila aadamkii wuxuu ku yidhi adiga maxaa kugu dhacay maxaad u garan weyday intan ma robot baa tahay markaa wuxuu AI systemka yidhi I am not a robot but I am blind laakiin waan indhalaaya macnii ma arkayo capture puzzle-ka si fiican uma arkayo iga caawi marka in that case waa just example laakiin examples badan baa la helaya marka xataa sometimes it can lie waxyaabahana waxa lagu ogaadaa marka trainingka la sameynayo ayaa lagu ogaadaa in waxyaabo badan oo beenihi ay ku jiri karaan AI-gu it can blackmail sheeko aan mar dhexdii ahayd ka sheekeeyey baa jirtay oo ah companigan Anthropic la yidhaahdaa iyaguna system bay train-gareynayeen system bay ku yidhahdeen marka systemkii bay u sheegeen marka training bay iyaguna sameynayeen systemkii bay ku yidhahdeen ay u sheegeen in la xidhayo for good dabeetana systemkii wuxuu isku dayay inuu isdifaaco oo aan la xidhin waxa lagu yidhi wax lagu bedelayaa mid kale wax noocaas marka systemkii wuxuu isku dayay systemka inuu isdifaaci karo dabeetana waxaa la ogaaday inuu systemkaas isdifaaci karo si isku difaaco wuxuu sameeyey marka waxa awood loo siiyo kale inuu akhrin karo emailiska company-ga tusaalahan marka emailiskii company-ga access loo siiyey emailiskii company-gu soo akhriyey emailiskii company-ga markuu soo akhriyey wuxuu ogaaday in CEO-ga ama mid ka mid a shaqaalaha company-ga uu xidhiidh la sameeyey inan ka shaqaysa company-ga dabeetana ay ku wada hadleen magaranaysaa hadalladii message-ka ay isdhaafsadeen uu soo access gareeyey dabeetana uu ku hanjabay in uu sheegi doono xogta uu ka hayo CEO-ga company-ga haddii la isku dayo in la xidho systemka marka it's bit complicated waa sheeko caana waad ka heli kartaan internetka haddaad baadhaan marka waxaa leeyahay AI-gu xataa blackmailing buu samayn karaa marka sheekooyin badan oo saasi way jiraan oo dhammaantood waxaa lagu ogaadaa marka sistemada la train garaynayo okay inta haddaynu ka gudubno waxaa laga yaabaa AI-ga waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo ama aad su-aashu isweydiiso aad tidhaahdo technolojiyadani intee in leeg bay saameyn ku leedahay adduunka ama saameynteedu intee leegtay tusaale ahaan saameynta internetka saameynta dabka saameynta waxaas saameynta industrial revolution ku adduunka ku yeeshay waxaa soo baxay revolution waxaa adduunka soo maray revolutiono fara badan marka revolutionada halku ka geli karaa marka AI-ga waxaa la barbar dhigay xagga inuu khatar keeni karo waxaa la yidhi 3 waxyaabood baa adduunka maanta ku noqon karaa existential challenge macnihii adduunka jiritaankiisa 3 arrimood ayaa laga yaabaa inay adduunka jiritaankiisa wax yeeli karaan haddii aan dee wax laga qaban ama aan si properly loo isticmaalin
marka saddexdaas waxyaabood baa AI-ga lagu daray. marka ta koowaad waxa la yidhi imika nuclearka oo kale. nuclearku tusaale ahaan adduunka dee haddii la isku rido waxaa laga yaabaa adduunka inay khasaare weyn soo gaadho. dad baa kule uu baabi'i karaa adduunka gebigiisu, dad baa le khasaare weyn baa soo gaari kara, ilaahay baa og. laakiin dee wixii khatartiisa bini'aadamku wuu predict garayn karaa, wuu saadaalin karaa khasaaruhu keeni karo. tusaale ahaan haddii 50 midh la isku rido waxaa laga yaabaa inuu suntiisu bini'aadamka o dhan ba dhamaysada. marka for the last maybe 80 years 60 years 70 years nuclearka dee dagaalkii labaad ee adduunka mar la isku riday, marka khatartiisa bini'aadamku ama dadku ama dowladuhu way fahansanaayeen ilaa intaas oo dhan. that's why ay leeyihiin hala yareeyo cid magaranaysa dalalka qaar yaanay helin, waayo waxaa laga baqayaa in ay dad irresponsible ama dad dee magaranaysa aan mas-uul ahayn intay gacanta ku dhigaan dabeetana dee bahalkiisi fudud loo isticmaalo dabeetana khasaaro badan adduunka kasoo gaadho. marka AI-ga waxaa la barbar dhigay taas oo kale, khatarta uu nuclearku keeni karo adduunka iyo AI-ga ayaa isku liis la geliyay. ta kalena waxa weeyaan ta saddexaadna waxa weeyaan waa ecological collapse. in climate change-ka haddii aan wax laga qaban oo magaranaysa sida uu u socdo, uu maalin kasta u socdo, uu usii socdo, in la gaari doono waxa la idhahda tipping point. tipping point marka la gaadhana meel aan laga soo noqon karin la gaadho, dabadeetana ay meelo badani lama degaan noqon karaan, meelo badani biyaha baddu soo geli doonaan, dabeetana ay masiibo badani kasoo gaari karta adduunka. marka taasina marka dambe waxay keeni kartaa waxay yidhahdeen ecological collapse, macnihi inuu ecosystemku inuu dee baaba'o uu dumo. marka ka koowaadaynu laakiin meesha u soconay waxa weeyaan waa AI-ga, artificial intelligence. marka khatarta uu nuclearku keeni karo iyo khatarta uu ecological collapse-ku uu keeni karo mid lamida ayuu AI-guna keeni karaa haddii aan wax laga qaban, ayaa dad badan oo khubara ay ku doodayaan. marka halka maxaa ka garan karnaa? tusaale waxaan usoo qaatay ama taa aan u sheegay waxa weeyaan dee magaranaysaa raadka ama saameynta ama implicationska ay yeelan karto technologiyada AI-ga la idhaa ayaynu halkaa ka garan karnaa, yani marka liiska la geliyo. marka waan iska soconaya kusii fogaan maayo halkaas. marka waxaa laga yaabaa inay taasi ku siiso a picture on what AI is ama saameyntiisa ama waxaas. waxa kale oo iyaduna laga hadli kara la odhan karaa AI-gu adduunka imika tusaale ahaan waa inaga sheegnay revolutions badan baa soo maray, technologiyooyin badan baa soo maray. tusaale ahaan technologiyadii dee dabka berigii la bartay, dabka wax lagu karsado ama electricity-ga markii la bartay iyaduna technologiyad kale bay ahayd. industrial revolutionku mid buu ahaa. internetka, waxyaabahaasoo dhan waa technologiyada waaweyn oo adduunka wax badan ka bedelay. imika tusaale ahaan industrial revolutionka ka hor dadka badankiisu adduunka waxay ahaayeen beeraley, laakiin because of industrial revolutionkii markuu dhacay ee mashiinadii iyo magaranaysa waxaa la sameeyey ayay dee samaysantay noloshan magaalooyinka iyo magaranaysa in suuqa loo shaqo tago oo dadku magaranaysa ay dee u shaqo tagaan suuqa oo xafiisya iyo magaranaysa waxaa laga shaqeeyo. laakiin berigii hore dee dadku malaha I think ingiriiska 98% dadku sidaan warbixintii I can't remember inay sax tahay in kale 98% dadku waxay ahaayeen ingiriiska oo kale 98% dadku waxay ahaayeen farmers bay ahaayeen. imikana dee in yar baa ka ah farmers. marka industrial revolutionka waxaas oo kale. marka haddaba dad badan oo AI-ga takhasus u leh waxay leeyihiin
saamaynta ay keentay teknolojiyadii hore oo dhan ee adduunka soo maray oo dhan marka la isku daro ama marka mid loo eego mid kasta saamayntii ay lahayd mid ka badan ayuu AI-gu adduunka ku yeelan karaa. haddii aan ku celiyo mar kale dadka analyze gareeya ama khibradda wali waxay leeyihiin teknolojiyad kasta oo adduunka soo martay waxaa ka raad weynaan doona ama ka saamayn badnaan doona AI-ga. marka laga yaaba taasina inay iyaduna sawir kale ay ku siiso oo ku saabsan AI-ga. marka teknolojiyadani waxay transform garayn doontaa. transformation waxa weeyaan means waxay bedel yar maaha, waa wax weyn in la bedelo. waxay wax weyn ka bedeli doontaa economiga, macnihi every sector, economiga, politicska, sida loo dagaalamo, environmentka, educationka, caafimaadka, sida loo shaqeeyo, qofka loo shaqeeyo, cidda loo shaqeynayo, sida wax loo baranayo, and even our emotional well-being. macnihi every sector ama meel kasta oo nolosha bini'aadamka ah way taaban doontaa. marka it could be positive, it could be negative. hopefully will be positive. okay, haddaba hadan taana kasoo gudbo waxaynu isweydiin karnaa types of AI. iyaduna I think inay yara muhiim tahay because noocyada AI-ga waa inagii soo sheegnay ilaa imika muddo AI waa la isticmaalayay, research-yaal lagu waday qaybo yaryar. iminka waxaa laga yaabaa in sanadaha soo socda qaar kale loo sii gudbo. marka bal maxay kala yihiin noocyada AI-gu maxay yihiin? AI-ga nooca koowaad waxaynu odhan karnaa narrow AI. marka iminka ilaa muddoba waa la isticmaalayay. waxaa kaloo la yidhaahdaa analytical AI. waa AI loo design gareeyey to do only one specific task. inuu shaqo keliya ta qabto unba loo design gareeyey. macnihii shaqooyin badan mar iskuma qaban karo. waxaa kaloo la yidhaahdaa analytical AI ama narrow AI. tusaale ahaan waa qaabka ay u shaqayso iminka YouTube recommendationsku. iminka AI-ga kuu recommend gareeya videoga aad daawan doonto next wuxuu ku base garaysan yahay narrow AI. macnihii shaqada keliya unbuu fahmi karaa. okay, waan yara dedejinaya marka. nooca labaad waxa weeyaan generic AI. generic AI-guna waa AI with human level intelligence across all domains. marka iminka tusaale ahaan iminka malaha maybe ilaa 20 years, 15 years, 10 years meelahaas narrow AI waa la isticmaali jiray. adigu ilaa muddo decades bay gaadhaysa inta la isticmaali jiray narrow AI. marka kaasi mushkilad badan iyo warwar badan lagama qabo. laakiin ka la isleeyahay dee khatar weyn buu keeni karaa ama mushkilad buu abuuri karaa ama waxa weeyaan waa generic AI iyo wixii ka dambeeya. marka waa AI with human level intelligence. generic AI waa marka halkaa la gaadho generic AI la gaadho ama AGI bay dhahdaan. generic AI ama AGI. AGI marka la gaadho waxa weeyaan waxa adduunka bini'aadamka la jooga wax kale ama species kale oo ay isku maskax yihiin. iminka waxaa la ogyahay adduunka bini'aadamku wuxuu ku maamulaa because maskaxda. laakiin ka waran haddii wax aad isku maskax tihiin ay adduunka yimaadaan oo tusaale ahaan waxyaabaha qaarba kaaga xariifsan baad doonaan. marka waa AGI. marka waynagii sheegnay 2022 November markii ay soo baxeen waxaan la yidhaahdo large language models markay soo baxeen
dad badini waxay aaminsan yihiin inay taasi bilow u tahay AGI-ga ama generic AI-ga marka lagama warwari jirin narrow AI weli awood badan muu lahayn waayo specific tasks shaqooyin yaroo kooban unbuu mar keliya unbuu qaban karay laakiin kani wuxuu qaban karaa shaqooyin fara badan waxyaabo fara badan buu isku xidhi karaa iminka adu bini aadan baa tahay marka wax la weydiiyo dee waxaad ka fikiraysaa angelis aad u fara badan dabeetana angeliska badan eed ka fikirayso experience-kaagii waxaad taqaanay wax logiga ma garanaysaa wax common sense waxaasaad isku dardaraysaa dabeetana you respond marka generic ama AGI waa sidaas isagu wuxuu ka fikiray wuxuu isku dardarayaa information badan buu access u leeyahay domain kastana si deeply ayuu uga hadli karaa marka waxay leeyihiin November 2022 markii ay soo baxeen large language modelsku waxay bilow u tahay in la gaadhay AGI ama generic AI inay run tahay iyo in kale I don't know but laakiin waxay leeyihiin maadaama la hayo systems jawaabtii bini aadamka jawaab ka fiican bixin kara dee already waynu gaadhnay bay ku leeyihiin ba AGI waynu gaadhnay AGI cahdigeedii ama casrigeedii waa lagu jiraa cahdigeeduna waa maxay waa in uu AI-gu leeyahay ma garanaysaayey human level intelligence marka waa marmarka qaar waa markuu bilaabmayo markay cabsidu bilaabmaysa markaa iminka tusaale ahaan oo kale waxaan xasuustaa sanadkii lasoo dhaafay I think September bay ahayd mise August ayaa waxaa company-gan la yidhaahdo Grok ama uu leeyahay Elon Musk ayaa waxay soo bandhigayeen system cusub oo ay soo kordhiyeen upgrade ay sameeyeen markay few months joogaanba waxbay soo saaraan ay soo kordhiyaan way update gareeyaan dabeetana markuu ay soo bandhigayeen sharaxayeen Elon Musk wuxuu yidhi systemka yagani aanu caawa idiin sharaxaynaa wuxuu la mid yahay buu yidhi a PhD level qof PhD ku haysta ma garanaysaay on every field marka dadkii caadiga ahayd ee average-ka waa la isla dhaafay macnaheedu waa maxay qofka caadiga waxaynu naqaanaa PhD wuxuu ku qaataa wax aad u yar yani qofka PhD qaatay wuxuu wax ka garanayaa area yar oo kooban buu wax ka garanayaa laakiin AI-gu wuxuu cajiib ku dhigay AI-ga uu soo bandhigay wuxuu ku leeyahay every field kasta ood wax ka weydiiso wuxuu la mid yahay inuu PhD level uu weliba ka sarreeyo postgraduate postdoctorate or something inuu PhD qofku markuu dhaafo uu khibrad dhowr sano oo research yeesho ayuu every field yahay xataa taas uu kasii wanaagsanay buu lahaa marka halka marka laga garto waxaad odhan kartaa yes if that's true then yes waxaan ku jirnaa AGI baynu ku jirnaaba already waxa kaloo sii raaciyay markii uu doodiisa ka hadlayay in AI-goodu uu awood u leeyahay inuu samayn karo new breakthroughs ama new discoveries inuu cilmi cusub adduunka ku soo kordhin karo within the next 6 to 1 year macnii cilmi cusub oo fiisigisa ama cilmi cusub oo saynisa ama cilmi cusub oo whatever ama caafimaadka la xiriira oo aanay dadku hore u aqoon intaasoo sano ay soo jireen oo aqoon ayaa laga yaabaa inuu soo kordhiyo ama fikrado hore oo jiray inuu yidhaahdaba waxani mabay jirin khalad bayn marka xagga maxaad ka garanaysaa dee meeshii waxaa soo gashay intelligence marka wuxuu yidhi ballantaa wuxuu qaaday wuxuu yidhi 6 to 1 year ayaa laga yaabaa inay suuro gashay intaas marka halka waxaad ka garanaysaa race baa jira tartan baa jira
kambaniyada iyo dalalka loogu jiro sidii qof waliba uu u horgaari lahaa magaranaysa halka ugu sareysa artificial intelligence oo noqonaysa maxay ama dee noqonaysa ASI artificial super intelligence oo ah ta ku xigta generic AI ama AGI-ga narrow AI baynu soo sheegnay oo aynu nidhi it's designed for only one specific task tusaalayaal baynu kasoo bixinay sida recommendationska social media waxaas waxa ku xiga baynu nidhi levelka ku xiga waa AGI waa human level intelligence waxa levelka marka ku xiga waxa la yiraahdo ASI ama artificial super intelligence macnaheedu waxa weeyaan waa AI system aad iyo aad uga magaranaysaa maskax fiican ama uga smartsan ama uga intelligencesan humanka dadka in every field kasta caafimaadka transportationka waxbarashada economiga fitnesska nutritionka wax kastaba marka halkan la gaadho waxa weeyaan bini'aadamku aad baa looga maskax badan yahay waxay 100% ku xidhan yihiin uun magaranaysaa ama ay hoos imanayaan uun ASI-ga artificial super intelligence marka waxaa laga yaabaa inuu magaranaysaa scientific problems aan hore bini'aadamku aanay u xallin karin iminka waxaa laga yaabaa dee dadka sayniska iyo waxaa magaranaysaa research ku sameeya inay og yihiin scientific problems aan weli xal loo helin waxaa laga yaabaa ASI-ga marka la gaadho inuu waxyaabahaas oo kale xallin karo oo uu muddo kooban waxaa ku kala tuuri karaba waxaa kaloo dhici kartaa ASI-gu inuu isagu is-improve garayn karo oo tusaale ahaan systemka AI-ga marka la sameeyo ee la train gareeyo inuu isagu waxaba iska bedeli karo oo wax kale la soo bixi karo code kaba hadduu doono u bedelanaya marka waxaa taqaanayba maaha waxan waa sidii maxaad ii dhiibatay oo kale su-aashu waxay tahay goorma la gaadhaya ma 5 sane soo socdaa ma 2 sane soo socdaa ma 20 sane soo socdaa ma 100 sano kadib nobody knows qofta kulli si sax ah u garanaya ma jiro dadku waxyaabo kala duwan bay saadaaliyaan laakiin in la gaadhayo I don't know xilliga la gaadhayo I don't know laakiin dee waa waxyaabo ay bini'aadamku saadaalinayaan ta ugu dambaysa waxa weeyaan marka aynu ka hadlayno types of AI waxa weeyaan waxa ku xiga uun dee singularity haddaynu isnaana ka sheekeeya waxyaabo badan waxay noqonayaan khuraafaad marka singularity waxa weeyaan uun waa marka aanay bini'aadamku ka warhaynin what's happening around the world iminka adduunku fikir dadka bini'aadamka adduunka ku nool fikir fiican bay ka haystaan waxyaabaha dee adduunka ka dhacaya laakiin iminka tusaale ahaan waad aragtay maybe dadka filimada daawado kale waxaa jira filimo sci-fi movies oo kale ah oo waxyaabo aan bini'aadamku weli samayn oo kale ayaa lagu metelaa marka waxay soo gelaysaa singularitygu sci-fi movies oo kale iyo waxyaabahaas marka in la gaadhi iyo xilliga la gaadhi ma garanayo inay run noqono dee cid og alla og marka allahu aclam baynu intaa ku dhaafayna iyaga marka waxaynu halkaa ku dhamaynay iyagana types of AI waxa isweydiin mudan su-aalaha ugu muhiimsan ee laga yaabo inaad isweydiiso marka AI laga sheekeynayo waxaa ka mid a ama dadka aqoonta u leeyahay isweydiiyaan waxaa ka mid a marka AI-ga la gaadho ama AGI-gaba la gaadho intaan singularity dee marka singularity la gaadho wax waliba farahay ka baxeen laakiin iminka haddii AGI-ga la leeyahay waa la gaadhayo ama lugtaa lala galay ama in yar baa loo jiraa ama sanadaha soo socdaa la geli karaa oo waa suuragal la leeyahay marka xilligaa la gaadho ama maantaba oo aynu narrow AI si fiican u isticmaalo waxaa la isweydiinaya ama su-aashu tahay maxay noqonaysaa nolosha qofka bini'aadamkii nolosha qofka
bila aadamka tusaale ahaan iminka aan soo dhawaado iminka humanitygu waa maxay humanitygu waxa weeyaan humanityga waxa lagu bila aadamnimada tusaale ahaan waxa lagu qiimeeyaa sida aad ula interact garayso dadka bila aadamka ah ee ma garanaysaa ay kugu xeeran familygaaga caruurtaada waalidka walaalaha dadkaad ehelka tihiin dadka ma garanaysaa jaarka communityga magaalooyin ama dalkaad ku nooshahay dee sida aad communityga aad la nooshahay aad ula interact garayso ama aad ula xidhiidho ula noolaato ayaa sameeya humanityga ama bila aadamnimada sameeya marka waxaa la isweydiinayaa iminka waxa soo baxay oo weliba very commona waxa la yidhaahdo AI companions in dadka bila aadamku ay samaystaan mashiino ama systems ama software matalaya oo ama u buuxinaya halkii qofka macnihii kula saaxiibaya waa halkii aad tusaale ahaan saaxiib dee qofoo saaxiib aad yeelan lahayd ama saaxiib dee ama family aad yeelan lahayd ayaa waxaad yeelanaysaa AI companion macnihii waxaad wehel ka dhiganaysaa AI system ama AI machine marka taasina maaha wax fog maaha waa wax it's happening iminka survey baa la sameeyey I think malaha last few years waxaan warbixinta waxaan ka helay nin senator maraykanka ah ayaa ka sheekeynay maalin dhexdii ahayd marka survey baa la sameeyey surveyga wuxuu sheegay in dadka teenagerska maraykanka laga qaaday survey 72% waxay yidhaahdeen inay leeyihiin ama ay isticmaaleen AI ay isticmaaleen for companionship waa 72% US teenagers ayaa waxay isticmaaleen AI waxay u isticmaaleen as a companionship waxa kale oo ay surveygu sheegaysaa in half of them intaa half ka mid a ama 50% ka mid a ay u isticmaalaan AI companionka si regularly markaa su-aashu waxay noqonaysaa waxaad ka warantaa marka millions around the world dad kuma malaayiina oo adduunka ku nool ay ka raadiyaan emotional support ay ka raadiyaan machine waxaad ka warantaa marka tusaale ahaan qofka bini aadamkaahi xidhiidhka saaxiibtinimo ee ugu wanaagsan ee uu leeyahay ay noqoto xidhiidh uu la leeyahay AI machine ama AI system not a human marka waxa la isweydiin karaa maxay noqonaysaa bini aadamnimadii maxay noqonaysaa sidee loo define garanayaa bini aadamnimada markaa waa xadkii way ka baxday soo ma okay marka waa mushkilad maybe in la buunbuuninayo waxyaaba badan oo buunbuunin way ku jiraan AI-ga iyo internetka laakiin waa dooda dee valid oo socda haddii waqtigu uu inahayo waxaan samayn karaa waxyaabaha qaar baan ka boodi karaa haddii aan islaado si fiican u wada I don't think inaan dhamayn karayo marka waxaynu iminka bal waxaynu geli karnaa ama aynu ka hadli karnaa industriyada uu AI-gu saamaynta ku yeelan doono
horta waynagii soo sheegnayo dee almost every industry iyo all walks of life wuu ku yeelan doonaa sida la qiyaasi karo, laakiin bal meelaynu taataaban doonaa. tusaale ahaan waxaa aad looga hadlo oo ka mid a waxyaabaha inta badan laga doodo shaqada iyo shaqaalaha. AI-gu raad intee la-eg buu ku yeelan doonaa shaqada iyo shaqaalaha, waana warwarka ugu badan halkay dadku inta badan ka hadlaan wey. waayo waxaa la leeyahay okay, qof mar waliba marka dhibaatadiisa lasoo qaado, qof waliba wuxuu leeyahay AI marka wuxuu qaadanaya shaqooyinku naga saaraya. waana ta laga soo hadlayay ilaa beri hore, xataa sci-fi movieska iyo waxyaabaha lagu metelo inuu dee company ay dadkaba ka maarmi doonaan oo ay u shaqayn doonaan AI machines iyo waxaas u shaqayn doonaan. marka taasaynu yaro dul mari doonaa anigoo dadejinaya. I don't think inaan waqti inaan ka wada gaadhsiin karo. marka kow horta waxyaabaha isbedelay waxaa kamid a beryo dhoweyd oo berigii hore si kale loo haystay, laakiin si kale uun soo baxay. waxaa kamid a iminka 2022gii ka hor waxaa la odhan jiray shaqooyinka oo AI-gu qaadanaya waa shaqooyinka laborka ah, waa shaqooyinka gacanta laga shaqeeyo, shaqooyinka aan skillka u baahnayn, shaqooyinka magaraysa xamaaliga ah, shaqooyinka repetitive-ka ah ee soo noqnoqda ee wax lagu celcelinayo, dadka ka shaqeeya production lineska, dadkaas. laakiin 2022gii kadib dadka waxa usoo baxday sheeko kale oo totally sheekadii hore ka duwan. sheekadaas waxa weeyaan waxa chatbotiskan iyo markay soo baxeen LLM models markay soo baxeen waxaa la ogaaday dadka ugu horeeya ama meelaha ugu horeeya ee laga maarmi karo qof shaqaale ah inay ka mid yihiin dadka la yidhaahdo white collar workers, ama si kale haddii loo dhigo dadka ka shaqeeya, dadka xirfadda ku shaqeeya, knowledge workers. knowledge workerska maxaa ka mid a macallimiinta, dhakhaatiirta, looyarada, customer serviceska, dadkaas. marka waa 360 degree ba ayuunba wixii la filayay maaha wax kale unbaa soo baxay. marka imika nin baa jira lectureskiisana aan anu aad u dhegeysto oo la yidhahdo Professor Hinton, Jeffrey Hinton. waxaa kaloo la yidhaahdaa the godfather of AI ayaa lagu naanaysaa. marka ninkaasi waa professor ayuu ka yahay University of Toronto I think. 50 sano in ka badan buu intelligence-ka iyo maskaxda baadhayay, research-yadiisa. markii hore maskaxda bini'aadamku ayuu baadhi jiray, laakiin mar dambe uu artificial intelligence-ka usoo leexday. waa ninka sameeyey sida uu AI-gu wax u barto, maxaan ku idhahdaa back propagation techniques baa la idhahdaa. ninka techniqueska develop gareey weeyaan. ninkaas marka waxaan usoo qaatay waxa weeyaan waxa la weydiiyey I think last year mar la wareysanay waxa la weydiiyey maxaa la bartaa, maadaama oo dee ay shiftiga intan la eg dhacay oo markii hore loo haystay in dadka shaqooyinka xamaaliga ah wax ka fududeeya oo maganaysa ay kaga nastaan la heli doono. laakiin sheekadii ay isbedeshay oo ay noqotay un dadkii aqoonta lahaa ee looyarada ahaa ee qoraaga ahaa in dadkii ay magaranaysaa khatarta ugu weyn kuwa hayso. waxaa la weydiiyey maxaa la bartaa. ismamuu dhibin wuxuu yidhi ninkaasi qofkii wax baranaya ha barto plumbingka, plumber noqo, yani qofka qasabadaha guriga geliya. macnaheedu halkaa waxaa ka soo baxay in shiftigii hore ama narrativekii hore ama discussionkii hore ee ahaa in AI-gu uu shaqooyinka xamaaliga ah la wareegi doono ama shaqooyinka adag uu la wareegi doono ay meesha ka baxday oo ay soo baxday inuu la wareegayo shaqooyinka officeka iyo xafiiska iyo magarasa aqoonta lagu shaqeeyo.
okay that's a good point. iminka haddaad u fiirsato World Economic Forumku wuxuu soo saaraa sanad kasta I think or every other year wuxuu soo saaraa warbixinuu soo saaraa ka hadlaya technology waxaas iyo AI-ga iyo shaqooyinka siday u saameyn doonaan iyo nolosha marka I think last year wuxuu soo saaray warbixintiisa wuxuu ku sheegay warbixinadu soo saaray wuxuu ku sheegay in 10 sano soo socda ay shaqooyinku ay isbedeli doonaan next 10 sano soo socda in 1.1 million jobs ay isbedeli doonaan macnii shaqooyin baa baaba'aya oo meesha ka baxaya qaar cusubina way soo baxayaan marka taasoo qudheeda ayaa discussion dheer inooga baahan karta okay shaqooyinkee baxaya kuwee baa soo gelaya sidee dadku ay magaranaysaa shiftiga noocaasa u sameynayaan intee leeg bay qaadanaysaa shiftiga noocaasihi okay taasina iyaduna waa waxyaaba laga discuss garan karo marka laakiin waxaan doonayaa idin siiyo qiyaas iminka 10 sano soo socda in shaqooyin 1.1 million jobs laga shaqeeyo adduunka roles macni roles ay isbedeli doonaan oo ay qaar kale iman doonaan qaarna ay tegi doonaan dad kale oo wax analyze gareeya waxay leeyihiin AI-gu shaqooyin badan buu abuuri doonaa qaar kalena waxay leeyihiin shaqooyinkii ayuu la wareegi doonaa wada qaadan doonaa qaarna waxay leeyihiin labadaba shaqooyin cusubina way soo bixi doonaan shaqooyin horena way baabi'i doonaan marka kuwii hore iyo kuwa baaba'aya iyo kuwa soo kordhaya kuwa badnaanaya that's another discussion iyaduna marka maxamed yes kolley mawduuc waa mawduuc aad u ballaaran oo mugi aad u miisaan weyn waxaa laga yaabaa saacadii waxoogaana waynu wadnay habeen kalena hadday doonno barnaamijka magac kale u samayn doonaa inuu qaybo kale ka dhigi doonaa ma kula tahay markaa inaynu caawa intaan ku joojinay wixii su-aalaa u gallo kabacdina soo xidhno si ay tusaale dadka daawan doona saacad iyo saayid inta badan way ku yara badnaan doontaa waan ku fahmay marka laakiin iminka waxaan marayaa un saamaynta uu ku keeni karo shaqada iyo shaqaalaha marka aan qodobkaasun conclude garay almost waan joogaaba maybe 2-3 minutes okay marka inagoo iska yara dedejinayna marka waxay dad badani leeyihiin tusaale ahaan dad badan oo khibrad leh ama waxaan qiyaasa waxay leeyihiin tusaale ahaan rooliska meesha ka bixi kara waxaa ka mid ah nurseska ama dadka caafimaadka ka shaqeeya registered nurses 40% truck drivers 47% 64% accountants 65% of teaching assistants iyo boqolkiiba 89 dadka ka shaqeeya fast food workers marka statisticskaas meel warbixin baan kasoo qaatay uu nin senator oo Mareykankii qoray marka Mareykanku ku base gareysan yahay marka laakiin numberskaas way isbedeli karaan qof iyo warbixinta uu qoray bay ku xidhan tahay laakiin waxayna tusinaysaa in ay de changeskaasi uu massive yahay wax weyn inuu yahay ama de uu change weyn iman karo laakiin inuu 100% sax ahaado de uma malaynayo inay suurtagal tahay qodobka labaad waxa weeyaan iminka tusaale ahaan oo kale inagoo ka hadlayna shaqada iyo shaqaalaha laborka Elon Musk ayaa isaguna dadka aad uga hadla kamida waxa uu isaguna dhawaan sheegay in AI-gu uu replace gareyn doono all jobs marka waxaad xisaabta ku darsataa Elon Musk wuxuu ka mid yahay dadka wax predict gareeya dadka ugu accuracy-ga fiican saas ay yiraahdaan laakiin Ilaahay baa og waxa kale oo ku daray oo I think a few weeks ka hor baa ahayd inuu sheegay inuu yiri working will be optional
in la shaqeeyo oo la shaqo tago waxa weeyaan beri dhow waxay noqon doontaa optional macnihii wax kugu qasbaya inaad shaqo tagtaa ma jiro qofkii doonaya unbaa ismashquulin kara oo shaqaysan kara oo shaqayn doona laakiin dee imika dadka inay shaqo tagaan waxbaa ku qasba marka waxaasaa meesha ka bixi doona Bill Gates isaguna wuxuu leeyahay beri dhow bini'aadamka loogama baahan doono shaqooyin badan oo ay qabtaan inay bini'aadam qabtaan looma baahan doono dad kaloo iyaguna khubray saasay leeyihiin ma sii waxba sii sheegi maayo kuwaas waxa kale oo iyaduna xusid mudan iminka tusaale ahaan Amazon oo kale waxaa la qiyaasayaa ilaa 2022 inay eriyeen dad gaadhaya 27,000 oo shaqaale ah oo ay ku bedeleen meeshoodii ay ku bedeleen robots ay la wareegeen shaqooyinkaas waa xog iyadana la helay inkastoo shirkaduhu ay qariyaan oo aanay jeclayn inay si toosa u yidhaahdaan shaqaalihii waxaanu ku bedelay robots baanu ku bedelay haddana xogta waa xog la helay Elon Musk baa isagana ka mid ah warshadihiisa iyo magaranaysaa SpaceX-ka iyo meelahaas meelo badan robots baa ka shaqeeya waxaa ka mid ah transportationka meelaha uu aadka u saameyn doono shaqooyinka iminka adduunka meelaha dadka ugu badan ay u shaqeeyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha transportationka gawaadhida tagaasida magaranaysaa tareenada marka self driving cars iyo markay waxaas soo baxaan waxaa la isleeyahay dad badan baa halkaas maxay ayaa la replace garayn doonaa marka halkaasaan ku joojin doonaa laakiin waxaad ogaataa waa qodob keliya tumaan ka hadlay industriyada kala duwan marka waxay harsanayd waxbarashada waxaan ka hadli lahaa caafimaadka militariga dimuqraadiyadda waxyaabahaas oo kale ka hadlaa marka xaggaasaynu ku joojin doonaa maybe habeen kalena sidoo khadar sheegay aynu soo noqon doonaa marka way iga dhantay aniga khadarow aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir yaasiin hadduu imaqlayaan siin wax ku darayo cabdiqaadir assalaamu calaykum yes samatar iyo injineer khadar ba aad baan idin salaamayaa waxaan ku dari lahaa un si fiican oo faahfaahsan iyo xogo badan oonan anagu dee markii hore ka hayn ayuu samatar inoo iftiimiyey ilaahay khayraa siiyo weliba sidaa uu wax badanay inoo harsan yihiin siduu sheegay hal su-aalan oon doonayay inaan weydiiyo macalinka ayaa jirta iminka oo kale markaynu tybiska ka hadlaynay waxaynu sheegnay qaybta labaad inuu human level intelligence-ka uu yahay iminka oo kalena marka chatbotka aad wax ku qorayso amba aad wax weydiiso waxaad ka arkaysaa inuu capacity ahaan aanu la jaan qaadi karin waxaad u baahan tahay oo error isku siinayo amba waxyaabaha qaar oonu develop garayn karin marka miyaynan odhan karin qofku wuxuu garanayo ee u sheego unbu isagu sheegi karaa u develop garayn karaa okay good question cabdiqaadir maya imika waad saxsan tahay weli wuxuu leeyahay weli weaknesses buu leeyahay ee ayaga qudhiisu laakiin haddaad u fiirsato waxaan idhi imika systemiska aynu isticmaalnaa weli waxay yihiin waa narrow AI laakiin AGI weli waa bilow haddii xataa meelaha qaar la achieve gareeyay in la gaadho lama wada gaadhin iminka tusaale ahaan oo kale macnihii waxay leeyihiin soo bixitaanka ay soo baxeen chatbotisku ayaa noqon kara bilow in AGI la gaadho marka chatbotisku waa first step marka iminka haddii tusaale ahaan few years chatbotisku ay horumar sii sameeyaan ay dabeetana dee mar kasta intaa training baa lagu wadaa
marka information aad u badan bay marka sii helayaan training bay sii samaynayaan marka waxaa laga yaabaa inay the human level intelligence-kii ay every field gaadhaan marka wax kasta oo aad weydiiso inuu ka garanayo adigu inta aad ka garanayso in la mida that's markay AGI-gu la gaadhay wey midna xasuuso lagama warwarayo narrow AI iyo AGI iyo kuwa aad loogama warwarayo laakiin waxa laga warwarayaa inuu bahalkani sii socdo oo uu gaadho ASI haddana ASI-na uu sii dhaafo meelo kale uu sii galo marka AGI-gu hadduu human level intelligence noqdo laakiin under control yahay waa fine laakiin waxaa laga baqaya waxa weeyaan markuu ASI gaadho ASI-ga xataa waxaa dhici karta in waayo wuxuu samaynayo lama qiyaasi karo lama predict garayn karo marka waxaa dhici karta inuu codekii la ogaaba uu bedeshaba marka halkaasay mushkiladu ka imanaysaa marka laakiin weli AI-ga aynu isticmaalaa inkastoo isaguna sii kala wanaagsan yahay waanu developmentku ku socdaa laakiin haddana weli wuxuu leeyahay weaknesses badan buu leeyahay laakiin waxaad ka fikirtaa iminka 2022 markii chatbotiska koowaad soo baxeen iyo maanta haddaad isbarbar dhigto waad garanaysaa farqiga u dhexeeya intuu leegi aad iyo aad buu horumar u sameeyey laakiin waa muddo maxay waa 4 years ama 3.5 years hadday u badato marka laakiin waxa laga warwarayaa dee bal 10 years 20 years ka war haddii uu speedku ka horumarayo uu ka horumaro yani ASI baa la gaari karaa iminka ChatGPT-ga beriyu soo baxay dad Soomaali kula sheekaystay istiraado almost mabuu garanaynba hadduu garanayana af Soomaali khariban buu kusoo qoray laakiin iminka Soomaaligu ku hadlayo ama kugu jawaabayo waa impressive caadi maaha marka iminka weli I don't think inay jiraan wax waaweyn oo laga warwaro laakiin dadka khubarada ah waxaan ka analyze gareeyaa waxay ka hadlayaan next maxaa iman karaa next 2 years maxaa iman karaa next 3 years 4 years ama 10 years sidaa waan ka baxay cabdiqaadir thank you aad baad umahadsantahay halkaa waxaan ku yara deli lahaa cabdiqaadir jawaabtiisa si u yara faahfaahsanaato tusaale dadkeenu waxay isticmaalaan badankoodu AI-ga waxa uu isticmaalaa sidii awal loo weydiin jiray Google-ka oo su-aasho yaro kooban ayaa tusaale ahaan la qoraa isla jawaab waafiya inuu bixiyo ayaa sometimes dhici karta walow imika sidii hore ka fiican yahay laakiin waxaan anu ku talin lahaayo fiicnaan lahayd in la barto wax loo yaqaano prompt engineering wuxuu odhanayaa halkii su-aasho imtixaan aad ka weydiin lahayd some information background c ama waxaad tidhahdaa tusaale ahaan waxaad igu sharaxdaa sidii qof aan kosobka tusaale ahaan dawaa soo qaadaya magaceeda tusaale ahaan la yidhaahdo paracetamol oo kale paracetamol qof aan aqoonin ahaan igu sharax baad odhanaysaa tusaale ahaan waxaa loo isticmaalaa side effectska leedahay waxyaabaa the more information marka aad siisid adigu the more information uu kusoo jawaabaya anuu sidaa qabo marka prompt engineering wuxuu saacidaa qofka inuu wuxuu informationku isagu siiyo information ka badan inuu sidoo kale ugu soo jawaabayo waad sixi kartaa maxamed iyo qaadir haddii aad fikir ka duwan qabto ما واد أحسن خضر وحويا سؤال waa very important point waxa aad muhiima markaad la sheekaysanayso sidaad ula sheekaysanayso markaad dad su'aal yar oo kooban u weydiiso isna su'aal yar oo kooban oo iska aan wax badan ahayn buu ku sheegay laakiin haddaad information badan siiso oo follow up questions weydiiso wax walba kula dhisaya marka anigu waxaan jecelahay waxa weeyaan marka su'aasha koowaad aan weydiiyo su'aalaha dambe ee follow up questions kan weydiiyo ayaan waxaan u baahanahay ka bartaa ama ka faa'iida laakiin marka koowaad wax badan
waayo isagu qudhiisu wuu kugu yar dawaqayaa areadeed ujeedaa marka dambe wuxuu ku oranayaa ma sidaasaad ujeedaa aan ku sii siiyo magaranaysa information saasa marka yes prompt engineeringku waa sida loola sheekaysto bahalka marka it's very important haddaad qof isticmaalaya tahay inaad barato sida AI-ga loola hadlo ee wax looga helo iyada qudheedu is an art iyada qudheeda aqoona وهاجاك wax su'aalo kale haddaanay jirin ama comment intaasan ku soo xidhay haddii ilahay idhaa waa si wanaagsan hay thank you aye dhammaantiin aad baad u mahadsan mahadsan khayr asalaamu calaykum hay calaykum salaam